السلام عليكم رمضان wanaagsan waa maalinkan saddexaad barnaamijka bedel noloshaada shal waxaan ka soo sheekeysanay siraha iyo talaabooyinka aan ku bedeli karo nafteena maanta waxaan rabaa inaan ka wada sheekeysano saaxiibtinimada saaxiibka wanaagsan iyo waxa aan ku aqoonsan karno waxa la dhahaa bini'aadamku waa dad u abuuran inay u noolaadaan si koox ah ma si kali ah halka waxa ka qiyaasan kartaa qof walba inuu u baahan yahay saaxiib dadka kale kaga dhow ay isfahmi karaan dareen ahaan iyo wax walba nolosha ku saabsan saaxiibkan kaaga sheekeynayo ma saaxiib xiriir iyo dana gaar ah balse saaxiib wax badan wadaagtaan saaxiibku wuxuu noqon karaa rag iyo dumar dadka kale kaaga dhow oo ayadoo aan laga sheekeysanaynin dan gaar ah iyo xiriir kaleeto way ka macno weyn tahay ka qiimo badan tahay ka xiisi iyo farxad badan tahay saaxiibtinimadu waxyaabaha xarfaha yaryar ee danaha gaarka looga sheekeynayo waana wax macno weyn abuuraya hadii qof walba qiimaheedii iyo dareenkeedii uu fahmo waxyaabaha ayaa jira dadka saaxiibka dhiga waxyaabahaas waxa ugu badan oo dadka saaxiibka dhiga waxa la dhahaa waa laba shay labada shay waxa ugu horeeya waxay tahay in qofka ama saaxiibka aad wada xiiseysaan hal shay halka shay hadii aadan wada xiiseynin ugu yaraan shayga aad xiiseyso wax ka agdhow in uu xiiseeyo ayaa saaxiib ka dhigan kartaa sidoo kale waxaad saaxiib ka dhigan kartaa qof aad taariikh nololeed soo wadaagteen tusaale qofkii aad soo wada nooleedeen caruurnimadiinii aad koriinka soo wada marteen ilaa iminka aad wada socotaan oo deegaanka aad wada joogtaan qofkaas kale saaxiib uu ku noqon karaa sababtoo qofkaas wuxuu ka hayaa xog badan oo noloshaada ku saabsan wuxuu yaqaanaa dareenadaadii wuxuu yaqaanaa awoodahaagii wuxuu yaqaanaa meelaha aad ku liidato wuxuu yaqaanaa meelaha aad ku xoogan tahay wuxuu yaqaanaa waxa aad jeceshahay waxa aad danaynayso qofkaasna saaxiib waa ka dhigan kartaa adna waad u noqon kartaa marka saaxiibku nolosheena door weyn ayuu ku leeyahay haddii aanan fahmin doorka nolosheena ku leeyahay dhibaato weyn ayay noqonaysaa dunida waxaa ka jira cudur la yiraahdo kali ahaansho dadka qaar markay isbitaalada iyo dhaqaatiirta ay u tagaan ay weydiiyaan xaaladahooda ay ugu sheekeeyaan waxa qabtiin cudur kalinimadu mararka qaar ay cudur noqotaa mararka qaarna waa xabsi oo dadka qaar lagu xiro oo dadku way ka cararaan marka kalinimadu waa inaad ka baxdaa oo aad saaxiibo kula riya ah kula ujeed ah kula hadaf aad qabsataa oo ku dhiirigeliya oo meel fiican ku gaarsiiya haddii aad dadkaasna waa la haystaa waa la ilaashadaa ilaahna waa looga xamdiyaa helistooda iyo inaad haysato maxaa ku aqoonsanaysaa saaxiibka wanaagsan waxaa ku aqoonsanaysaa number 1 wuxuu ka sheekeeyaa mar walba baraarahaaga iyo guushaada iyo waxgalkaaga haddii uu arko koox dhalinyaro oo ka sheekeynayso sheekadaada ama arintaada ee dhanka xun ka fiirinaya waxa uu sheegaa inaad wanaagsan tahay anigu saaxiibkaygu waa qof wanaagsan oo qurux badan oo tayo leh haddii maanta bulshada uu soo baxo ay wax weyn iska bedelayaan bulshada saaxiibkaygu waa qof waxgal ah saaxiibkaygu waa qof wax tara bulshada saaxiibkii waa qof nooca waa qof wanaagaaga iyo baraarahaaga ka sheekeeya sidoo kale saaxiibka dhabta waxyaabo lagu yaqaan waxa ka mid ah waxa uu kugu booriyaa ama kugu dhiirigeliyaa ama kugu canaantaa wadada saxan marna raali kaaga ma noqonaa wadada qaloocan oo kuma dhahaayo let's go dhaqaaq wadada sama waxa doonta samee kuma dhahaayo balse waa qof ku dhahaya ha sameeynin waxa samee waxa qabo shaqada noocaaya kaleeta macnaha shaqo walba oo riyadaada iyo jacaylkaaga horumarinayso saaxiibka dhabta waxyaabo lagu yaqaan waxay tahay waxa jeceshahay kuma sheega ee waxa aad u baahan tahay ku sheega waxa jeceshahay waxay tahay in wax walba haye lagu dhaho laakiin waxa u baahan tahay waxay tahay wax riyadaada guusheeda iyo baraaraheeda keenayo marka saaxiibka dhabka waa qof ku sheega waxa aad u baahan tahay balse aan ku sheegin waxa aad jeceshahay sidoo kale saaxiibka dhabta waxa lagu yaqaanaa qof mar walba kula baadi gooba kula raadiya wax walba riyadaada hadafka ay ku soo geli karto wax walba oo ku bixi kara si aad adigu u guulaysato soo kale uu sameeyaa marka qofkaas hadii aad haysato ee kula jacayl in guulaysato wanaagaaga bunbuuniya baraarahaaga hormariya kuna sheegayo waxa jeceshahay iyo waxa maxay ahayd ku wacan tahay kuna sheegayo waxa u baahan tahay ee aanan ku sheegin waxa jeceshahay soo kale ku dhaweeyay xagga Allah subhanahu wa ta'ala ka dhaweyso dadka kale ilaasho ilaahay ugu mahad in aad haysato qof dadka kale kaaga dhow kula riyaa kula jacayl baraaraha iyo guusha marnaba ha sameeyni wax walba aad ku weyn karto marka waxa ugu dambeeya rabo inaan ku sheego waxay tahay nabigina xadiis buu ku sheegay saaxiibka iyo qaabka uu noo saameeyo nolosheena hadal baa wuxuu ahaa
saaxiibka waxa uu yahay ayaa tahay sidoo kale mahmaah waxay ahayd saaxiibka kuma caddeeyo kumana madooweeyo balse sida uu yahay ayuu ka dhigay halka waxaa ka dareemaysaa in nolosheena door weyn uu ka leeyahay saaxiibka marka hal mid aan rabo marka inaan ugu dambeyn ku dhaho haddii saaxiibka uu wanaagsan yahay ku mahdi oo alla ugu mahadnaq oo ilaasho oo u sheeg hadeertaan la hadal ku dheh saaxiibka wanaagsan ma haysto waxaan rabaa inaad weligaa inta cimrigayga ka dhiman aad ila joogto haddii aadan haysan saaxiibo xun noloshaada ay ku jiraan kula hadal erayo awood leh u sheeg inaad u baahanta saaxiibo wanaagsan saaxiibo dhab ah saaxiibo xaqiiq ah inaad u baahan tahay balse aadan u baahnayn saaxiib wax walba kula majaamaleeya saaxiib wax walba samee ku dhaha saaxiib afka kaala hadla balse aanan niyadda saaxiib kaala ahayn inaad u baahnayn u sheeg inaad u baahanta saaxiibo dhaba u sheeg haddii intaasi erey awood leh aad ugu sheegto waxaan rajaynayaa inay soo bedeli doonaan ay ku noqon doonaan saaxiibo dhow oo aad laabta isgashataan inta ayaa kusoo gabagabeynaynaa xalqadeeni saddexaad ee barnaamijka bedel noloshaada waxaan rajaynayaa wax badan inaad kala dhex bixi doontaan haddii ay jirto talo iyo fariin aad jeclaan lahayd inaad ila soo wadaagto waxaa igala soo wadaagi kartaa gmailka shaashada kaaga muuqda haddii aad ka hesho muuqaalkan commentiga qaybta hoose nagula soo waag fariintaada mahadsanidin ramadaan wanaagsan anigu cabdifataax qaasim cali